bismillaahi raxmaani raxiim soo dhowaada saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan waa 22ka bisha Sebteembar maalin isniin ah. Iiraan waxay tijaabisay gantaal qaaradaha isaga kala gudba. Gantaalkii Khamiistii lagu weerarsanaa macluumaad cusub oo ka soo baxaya ayaan kula wadaagi doonaa. Dowladda Sacuudiga waxay digniin u dirtay Israa'iil arrinta ku saabsan dhanka daanta galbeed. Digniin la mid ah tan Imaaraadka Carabta miyay noqonaysaa? muxuu Maraykanka hadda ka doonayaa saldhigga Bagram oo dalka Afghanistan ku yaala? Shiinaha waa uu soo jawaabay. Waa maxay sababta ku qasbaysa dowladda Shiinaha inay Afghanistan la safato? Waxa kaloo aan macluumaadkan ku ogaan doonaa marka dhaqaalahaada Maraykanka iyo meelo la mid ah aad geyso sida isla dhaqaalahaada oo kaliya lagaaga dhigi karayo cunaqabataynta ugu horeysa, yacni isla iyagii lagu adeegsan karo. Turkiga iyo Israa'iil haddii ay dagaalamaan meelaha ugu sahlan ee labada dhinac iska weerari karaan. Turkiga ma ku baraarugsan yahay mid ka mid ah arrimaha ugu muhiimsan